sida roobkadii dunidii dadkaba caliyow deeqdaye daruuraha cirkiyo sida roobkadii dunidii dadkaba caliyow deeqdaye ambalaas duniyo isbitaal dahawalo وداري العافيمة تدكو وضعها انفعي أمبراس دوني يثبت الدهوالو وداري العافيمة تدكو وضعها انفعي دق مديك هاريسي ودالك ونهوريسي الله يوهوكو دعالي degmadii ka hareysay dalka wanuurisay allah yoo ku daali dahacado سيادان هرمر هل يلاقو داقيو لقون وباهو كاعي دارتيو تعليهن دوك سيادان هرمر هل يلاقو داقيو لقون وباهو كاعي عافي ملبان دور شيعاني وعاني السلام عليكم. هاد بدو ما سنتين ساد نوصل دويسين مانتا وقت وحال لغو جرا كولول او اوارا لغو جرو وقت اللي سكو ونيغو اما اللي سكو مرتيا معها وحال سويدي كرتا انتانو امده انتانو مدح maxaa maanta meeshan wajeer iskugu keenay wax badan baa lagu hadlay siyaasi badan baa laga hadlay anigu waxaan rabaa inaan idiin soo gaabiyo runtan aan idiin sheego waxa maanta lagu soo maagay horta waxaan u imaanay salaan waxaan u imaanay dabaaldeg waxaan u imaanay faataxa mar waxaan isku imaanay barasho inaan idan baranno waxna wuu noo weheliyaa waxaan noo weheliyo waxa weeye labadan sana reewajeer fartaan lagu soo fiiqay meeshan dadkan maxaa ku dhacaa laha war dadkan yaa kala gaara war dadkan yaa kala qabtaa war dadkan yaa heshiisiya war dadkan maxaa daaray soo odayaal ma qabaano soo culimo ma qabaano soo qoys ma qabaano sidan baan lagu xamanay labadan sana la soo dhaafay wajeer annaka meel dheer bay naga siyaasigeena ay kaga taalaa capitalka siyaasiga NFD ama North Eastern waa wajeer
gaaris nairobi iskaga dhowdahay madaxdii province noo ahaan jirtay Soomaaliya oo dhan baa ku idil laakiin aas-aaska iyo saldhigga siyaasiga NFD waa Wajeer waad ogtihiin dhaqdhaqaaqi NFD halkan Wajeer buu ka bilowday marka dawladda Kenya iyo Ingiriis ku gacan sayreynay soddonkii sultaan meeshan bay dawladda ku gacan sayreen oo shaqada ay kaga bixin dhaqdhaqaaqa NFD markii dawladda Kenya aan ka hortagaynay ee hub aan qaadanay ee la dagaalaynay meeshii Wajeer ay calanka qaad lagu yiri meeshan ay ahayd cilmiga ugu horeeyay wadankan iyo Shariif Shibli wuxuu ka bilowday Wajeer dawladdii aan u soo dagaalnay ee hub u qaadanay 2010 ilaahay baa sharci lagu siiyay oo waan helnay dawladdii markaa Wajeer ku soo hagaagtay oo waxa soo dib loo soo maray inaad idinka ku ciyaartiin anaga ma yeeleyno tartan baa la soo galay kuura la riday duqa Maxamed Cabdi baa ilaahay guusha siiyay wixii ka dambeeyay waxay dhaqan iyo maamul in la dhiso laakiin intiina meesha joogto oo odayaashii culimada ay ka madax yihiin xilkeeda saarnaa yaad ka soo bixi weyseen dadkii waxa iska Nairobi joogay waxaad idan qabsatay idinaga faa'iideysto oo cadow idinka faa'iideysto oo ininka la isku kidiro oo gaazeedka lagu akhristo oo dhibka meesha jira nin walba ogaan kuura mar walba soo mara inta meeshan madax ka ahayd oo khaliif uu ka kooyay Allah raxmada waad ogtiin nin walba oo siyaasi maanta ku jiro waqtigiisu buu qaadan uuna tagi taladana dadweynaha gacantooda ku jirta haddii kuura la soo maray oo aad is doorateen waxay ahayd meesha inay idin kaga dhamaato maanta alxamdulillah meeshii shalay aad joogteen meel ka soo kaad joogtiin arrimiina way soo hagaagaan laakiin weli ma daba dhamaanin khaas ahaan saddexda qoys ee maanta meeshan degan waxaan u malayn ajuuraan maanta dawladda wuxuu dheef wuxuu kala kulmo maanta dawladdu ku soo biiray kudigiisa buu ku wada idili ogaadeenna way ku wada idiliin laakiin adeerka ree waa loo dagoodi qabiilka in la sheega ma fiican laakiin runtan isku sheegna anaga meesha inta u soo marnay farba idin laaban waxaan rabnaa shaqadiina aad ka soo baxdiin siyaasadda baan isu gafin wiilka dambi muu gelin dambiga waxaa galay duqaydii ninka waa nin wax la siiyey oo 5 sano meesha wax ka ahaa oo magac ku yeeshay oo maal ku yeeshay oo dad ku bartay oo tol wax u taray war wiiliyow meesha istaag haddii inta duqay 20 duqay ay ku dhahan uu istaagi lahaa ininka farax ka bixiseen dambi uu leey ma leh haddii shaqada aad kar weysiin maantana weli ma daba dhamaan haddaad damayn weysiin 13 qoys ee dagoodiga gaaris way ku idiliin anaka idin kala wareegayna طبعا gaaris 13 bay kii wuxuu ku darsadeen ma sheegi karin aniga daacida meel baan ka soo galay oo nin reer Maxamuud baan meesha ka soo galay ma sheegay marka walaalayaal arrintan hayaraysanina dan way baan sugi arrimo culus baan idin sheegay census baa soo socda tirakoob baa soo socda dad waxaa jira ku tala gashan inaan annaka nambarkeena u yaraado ilaahay baa nabadiyay ilaahay baa barwaaqana siiyay laakiin nambarka inuu soo baxo dad aan rabin baa jira waa inaad soo baxdiin weliba markana la xisaabi waxaan isku xisaabnaa qabiil ani ogaadeen bana dagoodi baan ahay ajuuraan baan ahay garaan ahay kuwa kale oo Soomaali soo stater laha jiraan waxaan rabnaa inaad istaagto ani Soomaali baan ahay oo inaad tiraahdo marka lagu weydiiyo waxaad laakiin aad soo baxdiin siyaasi kale isku ma haddii siyaasi kale aan sii galno waxaa naga
إذا كنا ندعي كرتا ما أنت إني وحكي ماشي السكوم هذا أنك وحنا خالد كعاد كشيء شلي ناس كسر نقطين إناث الشيسين دولة الله إذا محمد عبدي وانين قضية وانين مسؤولة وأن إذا قيبنين وانين نقاليه إذين نبعد بعديني إلهي بأقول كل شيء قرب كوسية واحد صعدنا الربيع مدنا النقطة أنا كان تاسع قرب يدي كل هني هدينا له بعض مركز دو بهتين نوير وعدين بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قفنا آد يا دو